waxaan rabaa inaan inta aan ka hambaliyeeyo bogaadin iyo hambalyo uga diro shirka madasha iyo nabadda waarta ee koonfurta Soomaaliya oo ka furmay maanta magaalada Istanbul oo ay isugu tageen siyaasiyiin iyo aqoon-yahano iyo odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada iyo dadkii diasporada ahaa ee dibadaha joogay ay isugu tageen oo looga hadlayo horumarinta nabadda, dhaqaalaha, wax soo saarka, dib u dhiska deegaanada koonfur galbeed iyo koonfurta Soomaaliya oo dhan. aad baan u bogaadinaynaa, waxaan rajaynaynaa in horumarka nabadda iyo horumarka dowladnimada iyo horumarka deegaanada koonfur galbeedba wax fiican looga soo gaari doono. waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa midnimada iyo wadajirka dadka reer koonfur galbeed aqoon-yahankiisa iyo siyaasiyiintiisa iyo waxgaradkiisa